السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 24 نوفمبر 1971 waxaa tigidh ka goostay shirkadda Northwest Airlines nin magaciisa ku sheegay Dan Cooper. Wuxuu ka safrayay magaalada Portland isagoo ku sii jeeday Seattle. wuxuuna ku qoraa safarka nambarkiisu yahay 305 diyaaradda Boeing 727. xilliga 1971 qofku markii uu tigidh goosanayo lagama rabin wax cadayn ama dhalasho ama baasboor ah. sidoo kalena haddii uu garoonka soo galo wax baaritaan ma mari jirin, sidaa darteed qofku wuxuu la soo geli karay hub. arrintaasna waxay ku koobneed safarada gudaha bis. galabtii 9 saac oo galabnimo 24 November 1971 garoonka West Oriental waxaa ka kacday diyaaraddii uu saaraa Dan Cooper. waxyar kadib markii ay hawada gashay, Dan Cooper isagu wuxuu fariistay kursiyada dambe, kursiga 18C. wuxuu u yeeray mid ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya diyaaradda, hostesska loo yaqaano, kadibna wuxuu u dhiibay warqadda gabadha. markii hore waxay moodeysay inuu yahay nin ganacsade ah ama nin shukaansi waxaa u socda oo ciwaankiisa ama nambarkiisa ku qoray meesha. sidaa darteed warqadda ma aanay fiirin, waxay gelida jeebka. laakiin waxyar kadib Dan Cooper mar kale ayuu u yeeray gabadhii, wuxuuna u sheegay inay lagama maarmaan tahay inay warqadda furto akhridana. gabadhii markay furtay warqadda oo akhriday, warqadda waxaa ku qoraa inuu Dan Cooper sito bambo. si uu ugu sii xaqiijiyay gabadha in waxa ku qoran warqaddu ay dhab yihiinna, wuxuu tusay boorso yar oo gacanta ku sitay ayuu furay, kadibna wuxuu tusay bamka ku dhex jiro. gabadhii waxay ku laabatay bayloodka diyaaradda iyo kuwa hogaaminaya diyaaradda, iyadoo u sheegtay arrinka ninkan. iyaguna waxay u sheegeen arrinka booliska iyo shirkadda leh diyaaradda ee Northwest Airlines. intaa kadib gabadhii waxay ku soo laabatay Dan Cooper iyadoo weydiiday waxa uu doonayo. Dan Cooper wuxuu dalbaday $200,000 oo boorso ku jirta. $250,000 ee 71 oo dalbaday Dan Cooper maanta wuxuu u dhigmaa sicirkeedu $1,200,000. sidoo kalena wuxuu dalbaday in garoonka Seattle lagu diyaariyo booyad shidaal wado, si ay shidaal ugu shubto diyaaraddu markii ay degto, diyaaradduna hore ay uga sii kacdo. sidoo kalena wuxuu dalbaday 4 baarashuudka diyaaradaha looga boodo. gabadha arrinka waxay gaarsiiday bayloodka iyo hogaamiyaasha diyaaradda, iyaguna waxay gaarsiiyeen garoonka Seattle. markii ay timid diyaaradda garoonka Seattle, wuxuu amray Dan Cooper inaanay degin diyaaraddu ilaa wixii uu doonay loo fulinayo. diyaaradduna si dadka aan loo dareensiin waxay dul wareegtay garoonka Seattle 3 saacadood, iyagoo dadka u sheegaya in diyaaradda uu wax ka halaysan yahay, garoonka Seattle-na ay dhibaato ka jirto. intay waxaa socdaan, dhammaan rakaabka diyaaradda oo 36 qof ah lama socdaan arrinka meesha ka socda iyo inay diyaaraddoodu afduuban tahay. 3 saacadood kadib waxaa loo diyaariyey dhammaan wixii uu doonayay Dan Cooper. diyaaradduna waxay ka degtay garoonka Seattle. shidaalka ayaa lagu shubay. Dan Cooperna wuxuu ogolaaday dadkii rakaabka ay 36 qof ahaa inay diyaaradda ka degaan oo ay ku degaan magaaladii ay doonayeen ee Seattle. waxyar kadibna diyaaraddii dib ayay u kacday. wuxuu amray inay ku sii jeesato Mexico City, caasimadda Mexico, sidoo kalena ay sii marto garoonka Nevada si mar kale shidaal loogu sii shubo. waxyar kadib markay diyaaraddu ka kacday garoonka Seattle oo ay hawada ku jirtay, ciidanka Mareykanka waxay soo daba dhigeen diyaaradda 2 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah. Dan Cooperna ma aanu ogeyn in diyaaradda 2 diyaarad daba socdaan. jawigu wuxuu ahaa mid roob da'ayo, dabeelana ay jiraan. Dan Cooper wuxuu amray waxyar kadib shaqaalaha diyaaradda oo dhan inay isugu tagaan qolka bayloodka. waxyar kadib bayloodku wuxuu dareemay in iridda dambe ee diyaaraddu ay furan tahay. markii ay soo baxeen shaqaalihii diyaaradduna waxay ogaadeen in aanu joogin Dan Cooper oo iridda dambena ay furan tahay, diyaaradduna ay bannaan tahay. Dan Cooper wuxuu kaga dhex tegay meesha 2 ka mid ah baarashuudyadii hore loogu keenay ee 4 ahaa. markii ay ogaadeen inuu Dan Cooper diyaaradda ka degay, diyaaraddu waxay ugu laabatay dib garoonka Seattle. sidoo kalena markuu degay cid aragtay ma jirin, xataa diyaaradihii dagaalka ee lasoo daba dhigay ee labada ahaa ma aanay arag.
markii diyaaraddu ay garoon ka soo degtay isla markiiba waxay ugu dhaqaaqeen ciidanku baaritaan inay ka baaraan wixii uu kaga tegey iyo bal inuu fara kaga tegey. farihii ay meesha ka holeen waxay noqdeen 66 farood oo kala nuuc ah oo dhammaantood aan la aqoon cidda leh. sidaas darteedna diyaaradda dhexdeeda wax raad ah oo caddaynaya cidda uu ahaa Vancouver lagama helin. ciidanku waxay baaritaan sidoo kale ku sameeyeen goobtii uu ku booday Vancouver, sidoo kalena Vancouver lagama helin isagoo nool ama isagoo dhintay. 7 sano oo baaritaan kadib 1978 wuxuu nin ugaarsado ah agagaarka Washington ka helay alwaaxi markii uu dhaqana wuxuu ogaaday inay ku qoran yihiin waxyaabaha ku qorana waxaa ka mid ah macluumaad ku saabsan diyaaraddaas iyo safarkii 305 ee Boeing 727. wuxuu ku wareejiyey booliska waa ay baareen goobtii iyo alwaaxi, laakiin wax caddaynaya Vancouver iyo cidda uu ahaa waa ay ka waayeen. sidoo kale waxay baaritaan ku sameeyeen lacagtii ay Vancouver siiyeen oo nuuca $20 ahayd. lacagtaas waxay yaqaaneen ama ay hore usoo qorteen nambaradeeda isku xiga. lacagtii waa ay baareen, Mareykan ay ka baareen, laakiin wax lacagtaasa lama helin. 9 sano kadib 1980 wiil yar ayaa wuxuu ka helay webiga jambigiisa lacagtaas markii lagu wareejiyey ciidanka oo ay baareen waxaa la ogaaday inay tahay lacagtii la siiyey Vancouver. lacagtaas qiimaheedana wuxuu ahaa $5,800. lacagtii la siiyey Vancouver ee $1,200,000 ahayd lagama arag waxaan ahayn $500,000. baaritaan dheer kadibna wax raada waa laga waayey Vancouver. tan iyo maantana lama yaqaan cidda uu yahay Vancouver, halka uu ka baxay iyo lacagtaas halkii ay ku dambeeyday. qadiyadanna waa qadiyada kaliya ee aanay FBI-du tan iyo maanta xalin oo diyaarad la afduubtay ama diyaarad la dhacay ah. kama dambeys la iska xiray kiiskan 2016, 45 sano kadib markii baaritaan lagu waday. muuqaalkii maanta intaas uu ku egyahay. haddii ay tahay markii ugu horreeyay channelka halmaamin inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana like saar si uu gaaro dad badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.